kadib markii maalinimadii shalay ahayd ay diriic colaadeed ka soo cusbanaatay degmada Ceelafweyn iyo deegaanada hoos yimaada taasoo u dhaxaysa dadka walaalaha wadadiga deegaanadaasi ayaa waxa telefishinka Star wareysi ku siiyay magaalada Burco Jilaaga Ciise Cabdi Ismaaciil oo ku magac dheer Jawaan waxaana uu ka hadlay Jilaagu dhibaatooyinka ay keento colaadda u dhaxaysa dadka walaalaha ah isagoona baaq nabadeed u diray dadkaas ay diriirta colaadeed ku dhaxmartay deegaankaasi walaalayaal waxaan leeyahay dagaalada halka ka soo cusboonaaday waa dagaal fawaaxisha waa dagaal sokeeye waa dagaal murugo iyo xumaan iyo werwer iyo jixawaa iyo cunwa inta lagu abuuray dadka walaalaha ee deegaanka Ceelafweyn walaalayaal waxaan leeyahay meel ma kala qabanaysaan isma mari karaysaan xitaa dagaalka loo daayaba isma mari karaysaan oo dad la xasuuqi karayo qola gowl laga siin karayo walaalayaal ma tihidin dad kala tagaya oo qaarba loo war meesha laga meel kala geyn karayo ma tihidin dad kala fogaanaya ma tihidin waxa tiin dad gacala oo ehela oo walaala oo aan meel la ku kala maqnaanayn dadka dhintay horta waxaan uga tacsiidanayaa wax laala wixii ku dhintay in Ilaahay samiriyo iibaan naga wada siiyo reer Soomaaliland oo dhan wixii dhaawacana uu Ilaahay ka kiciyo laakiin waxaan leeyahay walaalayaal haddii aad dadweynaha reer Soomaaliland salaadiinta indheergaradka aqoon-yahanka abwaaniinta culimaadudiinka ganacsatada iyo xildhibaanada golayaasha qaranka iyo waliba xukuumadaba war walaalayaal arrinta yaa loo kala harine arrinta si weyn wax looga qabto waxa meesha ku jira hal la fahmo waxa meesha ku jira hal la fahmo milil guudkii lama dhaye war meesha haday wax qarsoon dibadda loo soo saaro oo hal ila war waata wixii qarsoonaya ka baxa oo lagu kala dhaqaaq waxaan leeyahay walaalayaal hawshan loo fiirsado waxna laga qabto sida nabadgelyada hal la ilaaliyo geesta kale waxa telefishinka Star la hadlay barsaab ku xigeenkii hore gobolka Tugdhar xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo siyaasiyiin kale waxaana ay baaq nabadeed u direen dadka walaalaha ee diriirta colaadeed ay ku soo cusbanaatay iyagoona bulshada Soomaaliland ugu baaqay in arintaasi si wada jir loo wajaho waxaanu baaq dheer u direynaa ummadda Ilaahay dhibaatada dhex dhigay ee walaalaha ee dadka isku xiga ee isku ehelka ee cid walba iska xigta ee cadceeda iyo abaarta iyo roobka iyo gudurka iyo maalintii habeenka mar wada hela ee aan collaytami karin ee islaamka ee Ilaahay dhigooda kala xaraam yeelay waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fitnada dhexdiina haydi ka siibo haydi ka qaado aamin dhibaatana inta ha ahaato waa arin laga dhaxay waa arin runtii aad iyo aad aan uga naxnay shalay markii aanu maqalay waa waxaan runtii aad iyo aad u xun oo wax qaranka iyo dadnimada iyo diinteenaba ku xun runtii in dhiig si rafud loo daadiyo waa ka dhimay oo kugu dhimay runtii markii horeba in dhiig muslim la daadiya aad buu adeeg u xaaran waana dalka maartay diinteenna ay ka taagan tahay waa markii way soo noqnoqotay runtii dadka walaalaha wada dhashay dilka isu geysanaya waa uu soo noqnoqdo waxaan ugu baaqaynaa marka hore culimada iyo cuqaasha iyo aqoon-yahanka iyo bulshada qayb kasta cid kastaaba ha ka qayb qaato iyagana waxaan leenahay war Ilaahay ka baqa oo Ilaahay ka cabsada oo waa la dhimanaya oo waa nacamtii waa la xisaabinaya war Ilaahay ka baqa oo joojiya aqliga saliimka waxa uu diidaya dad ehela oo wada dhashay oo cusbitaalkan tagayo labadii dhinacba way booqanayaan ki dhaawac ahaa labadii dhinacba waa laga ooyay kugu dhimay oo ka dhimay aad iyo aad looga naxo weeyaan waa masiibo runtii waxaan u soo jeedinaynaa in aqligu shaqeeyo intii dhimatay Ilaahay u naxariisto waragga inta nool ha loo taliyo isku soo wada xooriyo diriirta colaadeed ka taagan beelaha walaalaha wadadiga degmada Ceelafweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa mid soo noqnoqotay waa Khalid Bakeyle fogaan aragga xorta Star TV Burco.